kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal gebi ahaantiinba halkani waa maxamed yumbi janaal kusoo dhawaada gacmo furan fadlan janaalkan haddaad ku cusub tahay oo maanta ay kugu horeyso subscribe-ka inagu saacid sidoo kale commentiga iyo sheerta iyo like-gana waa xaggiina commentiga waxaa kusoo dhiiban kartaan fikradihiina iyo aaraadiina ku saabsan barnaamijyada aan soo gudbino iyo waxyaabaha isleedihiin in lagu soo kordhiyo janaalka ama soo sameeya ayaa wanaagsan. sidaaba sawirka kaga jeedaan maanta waxaan idiisoo wadaa warbixin ku saabsan sumxaanyada. sawirkaan ujeedid maahan mas maaha laakiin waa sumxaayo oo iyadu sidoo kale sida maska camal ah oona labah ah oo ah xamaaratada dhulka ku socota ayaan kusoo qaadan doonaa. sumxaayadan aa ujeedaan waxaa laga helay gudaha dalka Soomaaliya iyadoo la sheegay inay tahay nooc cusub oo caalamka ku cusub oo dad badan oo ajaanib ah oo sidoo kale baarayaal ah oo qubarana ku ah xayawaanada in ay iyagu sameeyeen baaritaankaas. balse sheekadan waxaa ka sheekeynaya nin isagu lagu magacaabo Xasan oo wax ka dhiga jaamacadda Camuud oo sidoo kalena kamid ah dadkii baarayay sumxaayadan oo weliba dhowr nooc ay u kala baxdo faahfaahinteedana ka sheekeynayo. warbixintiisa ayaan rabaa inaan idiisoo gudbiyo. sidoo kale warbixintan waxaa ugu gol leeyahay dalkeena Soomaaliya in waxyaabo fara badan oo kheyraad waxay kamid tahay hadda sumxaayadan nooca cusub ah oo caalamka laga arkin kheyraadka dalkeena uu leeyahay waxyaabo fara badan oo looga baahan yahay inaad ka ogaato gudaha dalkaaga hooyo. warbixintana dhegeysi wanaagsan. daraasad ballaaran oo muddo sanado ah soconaysay ayaa lagu sameeyey sumxaayada ku nool gudaha dalka Soomaaliya oo dhowaan lasoo bandhigay. daraasadani oo ay iska kaashanayaan jaamacadda Camuud ee magaalada Boorame ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo jaamacadda Charles lagu magacaabo iyada ku taala Czech ayaa soo saartay waxayna socotay baaritaankani muddo 12 sano ah. bara sare oo lagu magacaabo Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi oo baarayaasha daraasadani kamid ah jaamacadda Camuudna wax ka dhiga ayaa arrintan ka warbixinaya oo ka sheekeynaya qaabka wax ay u dhaceen iyo sidoo kale baaritaankanna waxa uu sheegay in uu soo bilaabay sanadkii 2013. kooxda baaritaankan sameynaysa oo ay kamid yihiin dadka iyaga lagu kala magacaabo Jerry Smith Sergio iyo sidoo kale Matila Fernandez iyo Thomas oo iyaga ka socda jaamacadda ku taala Czech ayaa gacan ka geysanaya iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka Somaliland. baarayaashan ayaa muddo 12 sano ah soo ururinayay xog ku saabsan sumxaayada ku nool dalalka Masar, Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya iyo Suudaan. waxayna ogaadeen noocan cusub oo sumxaayada ah ee laga helay gudaha dalka Soomaaliya in ay tahay mid ku cusub caalamka. noocan cusub ee sumxaayada ah ayaa waxaa lagu arkay deegaanka Yufle 28 kilomitir u jira magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag halka horena looga helay Baargaale oo isna ka tirsan maamulka Puntland. sidoo ay sheegeen baarayaashani sumxaayada waa qoys iyagu kamid ah oo aad u ballaaran oo sidoo kalena kamid ah xayawaanada xabadka ku xamaarta ee jiifleyda loo yaqaano. noocyada diiwaan gashan caalamkana waxay gaarayaan 34 sumxaayo oo iyagu halka 27 kamid ah laga helo Afrika. Xasan ayaa sheegay in 27daas ku dhawaad 14 kamid ahna in laga helo gudaha geeska Afrika oo ay Soomaaliya ay kamid tahay. sumxaayadu waa nooc kamid ah masaska oo iyadu ah mid aad u orod badan sidoo kalena ka dhudhuuban masaska waxayna tahay mid iyadu qaraabata maalintii habeenkiina iyadu nasata. sidoo kale maahan mid dhibaateynaysa ama dhibaato weyn ku hayn karta sunteeda aadamaha laakiin waxay leedahay sun iyadu ay ku qaraabato oo ay ku cunto xayawaanada yaryarka ah ee iyadu qaraabkeeda ah ay raashin ahaan u isticmaasho. sumxaayadan waa nooc cusub oo ka duwan noocyadii hore. markii hore loogu daray koox kale oo sumxaayo ah oo ay isku midab ay yihiin. markii ay muddo baarayeen ayay waxay ku qanceen in ay la walaal tahay sumxaayooyinkan kale aysan la dhalan. waxaan ka qaadnay hidisidaha DNA-da noocyo badan ayaana la baaraa oo hal kuma filna ayuu yiri. marka sumxaayada la qabto waxaa laga qaadaa candhuufta ayuu sii raaciyay. waxaa kaloo lagu ogaadaa sida uu qabiir ku sheegay in aysan isku wado mari karin noocyadan iyo noocan cusub ee sumxaayada ah. waa nooc dheer oo dhuuban
oo dhererkeeduna uu gaarayo 2 mitir ayuu sheegay. waxaa kaloo ay kaga duwan tahay ayuu yidhi nuuca kale ee sumxayada dhanka midabka, iyadoo leh midabka cawlka, sidoo kalena budda isha oo ah nuuc ka duwan oo ka weyn tan sumxayada kale ee hore loo yaqiina ama hore u diiwaan gashneed. baaritaanka DNA da laga qaaday nuucan cusub ee sumxayada ayaa lagu ogaaday in ay leeyihiin kala duwanaansho hidde-side sida 8% ilaa 12%. nuucan cusub ayaa lagu magac daray Plasmapheres ama sidoo kale sumxayada geeska Africa. marka la baarayo waxaa sidoo kale la adeegsadaa ayuu yiri kaamirooyin qaada sawiro aad u qurux badan iyo muuqaalo laga dhex arki karo qolofta marka noolaha markaasi la duubayo. nuucan cusub ee u gaarka ah deegaanada ka tirsan Puntland iyo Somaliland, iyadoo uu Xasan sheegay nuucan sidoo kale inaan laga helin deegaano kale oo kamid ah gudaha dalka Soomaaliya oo qaas ay u tahay labadaasi deegaan. baarayaashan ayaa sheegay inkastoo sumxayada baaritaankan lagu sameeyay nuucan cusub ee sumxayada laga helay Soomaaliya ay dalka u tahay wax weyn, haddana ay jirin caqabado lagala kulmo daraasad sameeyaashan jooga gudaha dalka Soomaaliya. dadka deegaanka marka ay arkaan dad cadaan ah waxay ku leeyihiin cadaankani uma imaanin waxbaar ee kheyraadka ayuu guranayaa oo dalka kheyraadkiisa ayuu qaadanayaa. waxa uu sheegay in ay tahay lagama maarmaan in la kaashado khubarada ku xeel dheer waxyaabaha baaritaanka ee ajaanibta ah, isaga oo sheegay in shaybaar iyo dhaqaale ay haystaan. waxa uu yidhi tusaale, aniga oo Xasan ah haddii aan u baahdo in dalkan deriskeena ah Kenya aan rabo wax inaan kasoo baaro, ma haysto dhaqaale iyo qalab igu filan oo aan wax ku baari karo. sidoo kalena ma jiraan khubaro Soomaali ah oo isku xilsaaray in waxyaabaha ceenkaani ah oo kale ay baaritaan ku sameeyaan, sidoo kalena ay usoo bandhigaan. marka waxa uu yidhi waa wax weyn in gudaha dalka Soomaaliya ay yimaadaan baariyaal ka socda caalamka, kuwaas oo iyagana xuduud aan lahayn oo meel walba ay doonayaan in ay wax ka baaraan ay fasax u heli karaan, xaqna ay u leeyihiin. sidoo kalena waxa uu ugu dambeyn sheegay in ay u wanaagsan tahay dalka Soomaaliya in baariyaal fara badan ay yimaadaan, oo uu sheegay in dalka uu leeyahay waxyaabo fara badan oo mucjiso ah oo weli caalamka aan loo soo bandhigin. warbixintan intaas ayaan kusoo goobayaa. waxaan ugu gol lahaa in Soomaaliya ay u baahan tahay dad fara badan oo wax soo bartay oo khubaro ah oo dhanka xayawaanada, dhanka macdanta, dhan walbo kheyraadka ahna baaritaan ku sameeya, gacan weyna ka geysta. sidaas iyo nabadgelyo.